الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وبعد سأوجدان وحال كان يالو سرقال كتر سنة أرورك الشباب دقر قوياشة شخص كمد أحا لكن هذا ميدا سيدة الأركتان إلهي فضليس أساق يسراكيل كله يعيدان ترددو أيضان تهي إلى لحية طبعا أفر كمدان أيهن سراكيل وكمد يهي محمود علي أو شعب كيغو يغنان دول يدين إيو فرحان إيو مع الإسحاق oo ahaa ninkii qaraxyada iyo dhibaatada u qaabilsanaa qaasatan magaalada Kismaayo iyo nawaxigeeda dhagar qabayaasha inay xalay ku guuleysteen ciidamada iyada Soomaaliyeed oo kala ah ciidanka sida gaarka u tababaran ee dawladda Jubbaland iyo ciidanka sida gaarka u tababaran ee dawladda Soomaaliyeed ee dawladda dhexe ka tirsan militariga ah howlgal ay ka wada midaysnaayeen oo isla fuliyeen labadaas ciidan in ilaahi fadligiis ay sababtay in saraakiishaas afartoon sheegay iyo 12 askari oo kalaba ay ku dilaan kadibna ay halkaas ku soo qabtaan gaarigii uu watay sargaalka hadda meedkiisa uu hoos yaalay ee dawladeen ee qalab fara badan oo ciidan oo saarnaa taas waxa ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa ta'aala in awalan allahi naga badbaadiyay shartoodii iyo dhibaatadii ay ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan darisadii iyo beesha caalamka intaba ay ku hayeen diinta Allah subxaanahu wa ta'aala oo sidaan ognahay ay u geysteen dhibaato fara badan iyo qaribaad ila diinteedu waa diin nasteexa ah oo masaajidada ilaahay iyo in la camiro ay diinteedu amartay ay u noqdeen kuwa qariban oo la xiro oo la iskaga tago oo cidna aysan ku tukanin ayadoo cabsi laga qabo shakhsiyaad ninkan oo kamid ahaa ay sabab u ahayd in allahaas shartooda naga badbaadiya awalan mahad iska leh waxa mahad gaar ah iska leh amaan ciidamadii geeshiyaasha ahaa ee Soomaaliyeed ee labada ciidan ka koobnaasaan oga hadlay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka Jubbaland ee sameeyay howlgalka ay ku guuleysteen oo dhabtii ay si u fuliyeen geesinimo leh ila waa garan kartaan in saraakiil tira intaas dhan iyo ciidankooda loo geysto qasaare intaan la eg oo dhankaygu qofna ooga dhiban qofna ooga dhaawacmin waxa garan kartaan taxadirka ay muujiyeen saraakiishaas hawshooda sida ay u ansaxday barnaamijka si u dajiyeen qiimaha uu leeyahay tababarka ay qabaan bay xaqiijinaysaa inuu yahay tababar qaali ah ayadoo Allah subhanahu wa ta'ala uu waafajiyay waxa amaan marka gaar ah leh ciidankaas geesiyaasha ah oo rabo inay ummadda Soomaaliyeed sida horumar iyo dawladnimo iyo kala dambeyn iyo nidaam u gaarto inay ku afjaraan kuna laayaan habeen iyo maalin howlgalna ku sameeyaan inay la diriraan dhagar qabayaasha ee dalka Soomaaliyeed u diiday dawladnimadii iyo wanaagii baabi'iyay shacabkii cuna qabateeyay wax garadkoodii laayay haduu oday ahaa iyo haduu aqoon-yahan ahaa hadday arda ahaayeen intaba iyo hadday madax ahaayeen intaba u taagan barnaamijkaas iyo shaqaas inay sii fuliyaan aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa oo una mahad celinayaa waxaan idin leeyahay sii wado insha Allah rahmaan Allah idinku guuleeyo waana wadaynaa oo ma ahan midaan kaliina ooga harayna insha Allah ta'ala aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan kaloo runtii xusid gaar ah mudan waxa jooga dalka Soomaaliya ciidamo badan oo kala duwan oo nabad ilaalin u joogo inay howlgalkaas ka qayb qaadanin waxaan Soomaali ahayn inay ka qayb qaateen labadii ciidan oo aan sheegay oo asal Soomaali ah laakiin kuwana ay yihiin ciidanka sida gaarka u tababarnaa ee dawladda Jubbaland ay lahayd ciidan oo ahaa ciidanka sida gaarka u tababarnaa ee militariga Soomaaliyeed ahaa ee aysan lug kala ku lahayn
cid kale oo barnaamijkan ee shaqadan wax ka qabatay oo ayna ku jirin saaxiibadan AMISOM hadda nala joogo iyo kuwa kale intaba inaysan howlgalkan aysan maanta ayna ku lahayn door kale aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa geeshiyaashaas allahna idin guuleeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.